dhammaantiin waad salaamantihiin asxaabtayda qaaliga waxaan halkan ka sii wadi doonaa casharkii AutoCAD-ka oo aan tusi doono hadba sida loo sawiro waxyaabaha iyo qaababka 3-dimensionalska maantana waxaan doonayaa inaan sawirno walaxdaas ayaan sawirnaa. Okay, start build drawing. walaxda maadaama ay 3-dimensional tahay waxaan dooranaynaa SE. halkana waad ka dooran kartaa SE isometric ayaad ka dooranaysaa, calaamadaas ayaad origin ka geenaysaa USC icon and then no origin ayaad dooranaysaa. intaa markaan sameeyo waxaan eegayaa sawirkayga wuxuu ka kooban yahay rectangle-ka halka ku jira bargeeskaas oo dhinaciisaas yahay 20 80 20 120 iyo halkaasoo 80 halkaasaan sawirayaa, hoosna wuxuu halaysan yahay 15 rectangle dimension waxay ahayd 120 ayuu ahaa dhinaca kale waxaa 80. intaa markaan sawiro rectangle-kaygii waan sawiray. hadda waxaan hoos u shiidayaa markaas 15 press pull command-iga la yidhaahdo ayaan isticmaalayaa. intaa markaan isticmaalo waxaan sawirayaa markaa qaybtaas ayaan sawirayaa yar oo hoos u jeeda goobadeedana leh. si aan inta u sawiro halkaas waxa weeyaan waa 20 halkaasaan sawiraya. marka waxaan leeyahay copy edge kaasaan doortay, enter waan qabtay, xaggaasaan u kaxeeyey 20. kaa markaan sawiro hoos ayaan qaybtaa u jiidiyaa si ay u dheeraato. marka waxaan leeyahay realistic baan dooranayaa. realistic markaan doorto waxaan soo qabanayaa qaybtaasaan soo qabanayaa. imisa ayaan hoos u jiidayaa halkaas waa ilaa 50 way halkaasi 50 markay tahay daa'irada gacankeeduna waxa weeyaan 16 plus 50 waxa weeyaan 66 ayaan hoos u jiiday. intaa markaan sameeyo waxaan sameynayaa marka goobada weyna dhexda ku jirta ayaan sameynayaa. goobadu halkaa 50 ayaan kasoo degayaa. halkaa horta front dooro sidaan dhinaca ugu sawiro si raaxada. road ayaan ka doortay. goobada kale dhexda ku jirta ayaan sawirayaa. gacankeedu waa imisa waa 22 diameterkeedu markaa 16. markaan saa u eego goobadii xaggan ay u dhaaftay. marka waxaan doonayaa inaan haddana hoos soo jiido intaas. marka waxaan leeyahay realistic. markii hore ayaan cabirka khalday garaalahaada. intaa hoos u jiid, intaa doonta gee. halkaa markaan marayo marka qaybtaas iyo qaybtaas uma baahni waan iska saaraya. waxaan leeyahay press pull hoos iga jiid. press pull intaa uma baahni, haddana press pull tanna uma baahni, taana waan ka saaray. intaa markaan ka saaro waxaan iska dhila garanayaa haddaba goobadaas uma baahni, goobadaana uma baahni. halkaa markaan marayo waxaan dhameeyay sawirka qaybtiisa inaan dhameeyo. waxaan doonayaa in qaybtan aan halkaa geeyo haddana. sidaa darteed waxaan isticmaalayaa mirror ayaan isticmaalayaa. mirror qaybta doonayaan qaaday, enter bartanka ayaan dooranayaa si center u doorto. halkaasaan saa ugu xidhayaa. markaa no ayaan leeyahay. intaa markaan sameeyo
hadda waxaan sameeyay qaybtayda marka waxaan doonayaa inaan isku xidho qayb weeye inaan isku xidhan rabaa waxaan leeyahay union hadda waa hal qayb hadda waxay hadhay kaliya sawirka qaybtiisa sare goobada ayay hadhay goobadaas aan sawiro waxaan eegayaa sawirka wuxuu ku taalaa bartanka rectangle ku taalaa bartanka rectangle markaan ku sawiraya soo qabto standardta inaan taabtay bartanka halkaas sugayno daairadeedu waxa weeyaan 40 markaan sawiro waxaan sawirayaa ka kale oo gacankeedu iyaduna yahay 60 weeye markaas intaas ayaan kor u qaadayaa 15 ayaan kor u qaadayaa press pull dooro 15 kor u qaad 15 kor u qaaday hadda waxay soo baxday taas marka halkaas ayaan goobo kale ku sawirayaa 15 ah inta markaan sameeyo waxaan leeyahay press pull ayaan leeyahay hoos u dhig intaan hoos u dhigo waxaan leeyahay saan uga saaro haddaad si kale uga saari weydo extract dheh ka weyn dooro marka hore bacdeen ninka aad ka saarayso dooro mar labaad aan ka saaray saana uma baahni aan la gareeyay hadda sawirkaygu waa dhan yahay waxaan leeyahay oo keliya union dan waxaan leeyahay move dan sida masaxo meesha yaalo u dhamaaday sawirkeennii aad iyo aad baad ugu mahadsantahay intaad daawanayseen waxaan rajaynayaa inaad kuna sawiri doontaan allah idin fududeeyo وعليكم السلام